Ano wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah waa sidee xaaladda Boosaaso oo maanta ay isku farasaareen ciidanka taabacsan madaxweyne Dani iyo kuwa BSF maxaa ka jira in ciidamada Dani looga gacan sareeyay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka Puntland marunba in ciidamada dawladda federaalka ah ee dagaalka ka qayb qaateen gaar ahaan ciidanka Gorgor iyaysa la safnaayeen ee xaaladda dagaalka Itoobiya oo gabagaba maraya ayaan daawada idin haynaa wararka Itoobiyana waxaa kamid ah xukuumadda Abiy Ahmed oo diiday inuu isi soo dhiibo madaxweynaha TPLF qodobada iyo kuwa kale oo xasaasiya ayaad warkeena caawa ku daawan doontaan hadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqato janaalkeena subscribe oo furagan baleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid ciidamo ka amar qaata madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa weerar ku qaaday xarunta ciidanka BSF ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso dagaalka oo maanta ka qarxay gudaha magaalada ayaa waxaa bilaabay ciidamada BMBF oo weerar ku qaaday xarunta ciidanka gaarka ah ee BSF ciidanka gaarka u tababaran ee BSF oo markii hore difaacyo uga qadnaayeen xaruntooda ayaa soo riixay kuwa maamulka Puntland ee BMBF iyagoona goobo horle ka qabsaday ciidanka Dani dagaalka oo lisoo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaysan labada dhinac waxay sulaha saacadihii hore ee dagaalka xarumaha laga qabsaday dawladana waxaa kamid ah xarunta dawladda hoose ee magaalada Boosaaso oo hadda gacanta ugu jirta ciidanka gaarka ah ee BSF waxaa kale oo jira gawaari dagaal iyo hub la kala qabsaday sida la sheegay ciidanka maamulka Puntland ayaa laga qabsaday gawaari dagaal waana ciidankii dagaalka ku soo qaaday gawaaridaasina waxaa lagu soo bandhigay xarunta ciidanka BSF kadib markii ay riixeen ciidamadii ka soo horjeeday ee taabacsanaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani duqa magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Gorgor ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dagaalka qayb ka qaateen iyagoona burburiyay xarumaha danta guud sida xarunta dawladda hoose ee Boosaaso dagaalkan ayaa u muuqday in madaxweyne Dani uu ku fududaaday maadaama dagaalku uu waji kala yeeshay ciidankii la weerarana ka awood bateen intii u maleynayeen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa go'aansaday inuu burburiyo magaalada Boosaaso ama ay ka dhaqan gasho magacaabistii agaasimaha cusub ee hay'adaasi uu magacaabay bishii la soo dhaafay qoysas danyar ah oo ku noolaa xaafadda Ridwaan ee ku taala magaalada Boosaaso ayay saameyn ku yeesheen dagaaladii maanta ka bilowday magaalada Boosaaso dad danyar ah oo aan haysan hooy iyo gabaad xoogan oo ay ka galaan rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada dawladda ayaa ku waxyeeloobay sida ay xaqiijiyeen ila xoog ogaal ah ciidamada ka amar qaata Saciid Dani ee dagaalka kula jira ciidanka BSF ayaa diiday in dadka shacabka ah ee degan xaafadda Ridwaan ee Boosaaso ay halkaasi ka baxaan si ay naftooda u badbaadsadaan dagaalka ayaa hadda kala joogsaday jawiga magaalada ayaana aad u degan oo magaalada waa cidlo dagaalkii saakay ka bilowday hal xaafad oo ku ekaa xaafadda Ridwaan ayaa hadda saameyn ku yeeshay saddex xaafad ee kale maadaama ciidanka BSF ee banaanka u soo baxeen xaafadda Ridwaan ay isku faafiyeen si ay gurmud u helaan ciidanka maamulka Puntland ayaa gadaal uga durgay goobihii ay saaka ka soo duuleen iyagoo fariisimo cusub ka samaystay goobo hor leh waxayna hadda gurmad ka helayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland dhanka kale ciidanka BSF ayaa aaga xeebta isku faafiyay iyagoo dhinacyadaasi ay gurmad ka helayaan maleeshiya beeleed ay isu dhow yihiin taliyaha ciidanka BSF ee diidan inuu xilka wareejiyo bari subax ayay ciidanka BSF doonayaan inay weerar ku ekeeyaan labada xaafad ee u dhiman haddii ay dhacdo in xaafadahaasi ay qabsadaan ciidanka BSF magaalada Boosaaso waxay gacanta u galaysaa ciidamada gaarka u tababaran ee BSF waxaa sidoo kale gacanta ka bixi doona dekada oo ay hadda qarka u saaran yihiin ciidanka BSF warar aan la xaqiijin ayaa hadda sheegaya in Saciid Dani uu ogolaaday in hadda wada hadal la furo isagoo awal dhagaha ka furaysta baaqyadii ismada Puntland qaarkoodna lacag ayuu siiyay si ay uga taageeraan dagaalka uu maanta ka bilaabay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland wada hadallada uu hadda ogolaaday Dani ayay diideen ciidanka BSF iyagoona shuruud uga dhigay in ciidanka dheeraadka ah ee magaalada laga saaro kadibna wada hadal la furo haddaba Saciid Dani wuxuu go'aansaday inuu xasuuqo shacabka iyo ciidanka intaba maxayse kula tahay daawada aragtidaada noogu wada commentiga dhanka kale xaaladda Itoobiya ayaa la sheegayaa in dagaalka Itoobiya uu gabagabo marayo xukuumadda Abiy Ahmedna diiday inuu isi soo dhiibo hogaamiyaha ugu sareeya TPLF
xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku gacan seertay go-aanka ay ku dhawaaqeen mucaaradka tigreega ee ah inay ka baxayaan gobolka deriska la ah inay ka baxayaan gobollada deriska la ah ee afa iyo amxaara. waxaan hadda dhammaystirnay kabixitaanka ciidamadeenna ee gobollada amxaara iyo afar, waxaa sidaasi twitterka ku qoray afhayeenka TPLF. tallaabadan lama filaanka ah ayaa dhabaha u xaaraysa xabad joojin in laga gaaro 13 bilood dagaal qaatay oo qaraar kaasoo ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. waxaan ku kalsoonahay in ficilkeenna geesinimada leh ee bixitaankeenna uu noqon doono bilowga nabadda, ayuu yidhi Debretsion Gebremichael, madaxweynaha xisbiga TPLF ee xisbiga siyaasadeedka gacanta ku haya inta badan gobolka waqooyi ee Tigray. hase yeeshee afhayeenka abiy axmed bilaani simon ayaa ku gacan seeray ku dhawaaqista mucaaradka oo ay ku qeexday mid lagu qarinayo guuldarooyin militari. TPLF waxaa ku dhacday khasaarooyin waaweyn toddobaadyadii dhowaa, sidaa darteedna waxay sheegayaan dib u gurasho xeeladeed si ay u qariyaan guuldarooyin, ayay u sheegtay AFP. weli waxaa jira qaybo ka mid ah gobollada amxaarada oo ay joogaan iyo sidoo kale furimo kale oo isku dayayaan inay dagaal ka furaan. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa ka farcisay go-aanka Tigreega, wuxuuna afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Ned Price uu sheegay in haddii la xaqiijiyo dib u gurashada TPLF ay tahay arrin ay aad u soo dhaweynayaan. waa arrin aan ku baaqayno, waxaana rajaynaynaa inay albaabka u furi doonto diblomaasiyad ballaaran. warqad uu diray qaramada midoobay ayuu hogaamiyaha TPLF Debretsion ku baaqay in hawada gobolka Tigray laga dhigo aag diblomaasiyadeed oo ka caagan cunaqabataynta hubka oo lagu soo rogay Itoobiya iyo xulafadeeda Eritrea, iyo in la dejiyo hab ay qaramada midoobay ku xaqiijin karto in dhammaan ciidamada bannaanka ka yimid ay ka baxaan gobolka Tigray. qaramada midoobay ayaa horey dowladda ugu eedeysay inay xayiraad kusoo rogtay gobolka, eedeyntaasi oo dowladda ay beenisay. waxaan filaynaa in maadaama aan ka baxayno in bulshada caalamka ay wax ka qaban doonaan xaaladda Tigray, maadaama ay hadda kadib qiil ka dhigan karin in ciidamadeenna ay qabsanayaan amxaara iyo afar. waxaa sidaasi Reuters u sheegay afhayeenka TPLF. hindisooyinka kale ee ku jira warqadda Debretsion u qoray qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ah in la sii daayo kumanaanka qof ee maxaabiista siyaasadeed ee Tigray ee ku xiran dowladda, inay baarayaal caalami ah u dirayaan kuwa ka mas-uulka ah dambiyada dagaal ee ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. xaaladda Itoobiya oo maalmahan sii qasmaysay ayaa hadda u muuqatay in dagaalka Itoobiya uu yahay mid gabagaba ah. Tigray ayaa qarka u saaran tahay inay isdhiibaan, balse dadka aad ugu warrama xaaladaha Itoobiya aqoonta fogna u leh Tigray ayaa waxay ku sheegayaan in arrintani ay tahay xeelo dagaal.